kulanti wanaagsan daawadayaal markale iyo barnaamijkeennii falanqaynta dunida iyo warbixinada dhinaca diblomaasiyadda ee kala socodsiisan Horfadhi Media. Qodobada aad maanta ama caawa wararkeena ku daawan doontaan daawadayaal waxaa ugu waaweyn kumanaan ka tirsan ciidamada Israa'iil oo la sheegayo inay la ildaran yihiin xanuuno dhinaca dhimirka ah kadib dagaaladii xooggan ay kula jiraan shacabka reer Falastiin iyo warbixin arrintaas ku saabsan ay warbaahinta dalkaasi Yuhuuddu soo bandhigtay kolkii ugu horeysay. Hay'adda xuquuqul insaanka Human Rights Watch ayaa iyaduna ku baaqday in maxkamad cadaalad la soo taago hogaamiyihii maamulka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar Cabdi Ilay oo ku xiran magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia. Sidoo kalena markii ugu horeysay ayaa waxaa kale loo ogaaday in istiraatiijiyadda dhinaca howlgallada dagaalka internetka ee Ruushku uu isbedelay isla markaana ay haatan bartilmaameedsanayaan xubno ka tirsan kuwa xisbiga jamhuuriga ee madaxweynaha dalkaasi Mareykanka ka soo horjeeda. Sidoo kalena qodobo xasaasi ah oo ay ka mid tahay qaramada midoobay oo lagu dhawaaqay in ay qarka u saartay inay dunto ayaa ka mid ah wararka iyo caalaha dhinaca diblomaasiyadda. Ruushkuna wuxuu ku hanjabay in uu joojinayo dhammaan lacagaha dollarka ah ee uu ku iibinayo hubkiisa. Halka nagala socota Horfadhi Media qodobadaasi ku kala idin waa 22 bishii 8 2018 dabcan waa maalinimo ثالثة عيد مبارك دمانتين كل عام وأنتم بالخير. إلهي عملك ونكسنا صالحة هنا جاء أقبله وحي الذنوب هنا إلهي سبحانه وتعالى هنا جاء عافية دمانتين نتوضع شقيمة هلا نكون بلا بس مركان أنا جوه رئيسية ذلك كان جاء وحى مرن وكذا شيء مرن وكذا شيء معلن تلود بلدقة عيد الأضحى كدي مركي قادقة محكمة دا وشيء إن ما أنت أي سنة هاي معلن عيد بلس أي تاي معلن السيوم يجي وسجالك بيشد الحجة وكشاف مرن يدود كسب سن معلن عيد أيام مركزي هالكاسي كتاجن شق أحمد محاضر oo ah qaadiga guud ee Kenya oo inta badan dawladda Kenya asaga ay aqoonsan tahay ayaa la dhaleecayn xooggan ay kala kulmayaan hogaamiyaasha muslimiinta ee dhinaca diinta iyo kuwa siyaasadda ee dalka Kenya u badan dadka Soomaalida. waxa fariin uu soo saaray wuxuu ku sheegay in ay maalinta talaadada ay tahay maalintii sagaalaad sida daraadeedna aysan ahayn maalinta ay tahay in la fasaxo. dalka Kenya ayaa dhawaan wuxuu ku daray liiska maalmaha fasaxa qaranka maalinta Ciidul Adha ee dadka muslimiinta ay u dabaaldegaan. hase yeeshee Mr. Sheikh Ahmed Muhadir ayaa waxa uu hareeyay in badan in uu khilaaf xoogan kala dhaxligo dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan dalka Kenya guud ahaantii. hadalka qaadiga ayaa waxa si weyn uga soo horjeestay mas'uuliyiin uu kamid yahay hogaamiyaha aqlabiyadda badan ee baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale oo sheegay in ay nasiib darro tahay in qaadiga wadanka uu khilaafo muslimiinta isla markaana bari oo ay tahay maalintii ciid ee guud ahaan caalamka islaamka oo dhan uu ka dhigay inay tahay maalin la Soomaaliya. waxa arintaasi ay ina soo xasuusinaysaa in dhibaato xoogan uu wadanka ka wado. maalinta talaadada ah waa maanta ah waa maalintii in ciid u dabaaldeganay waana khalad buuli xagga diinta khalad xagga wadanka iyo khalad xagga iska horkeenka dadka muslimiinta iyo kala irdheentooda xagga isku duubnida ah kolka ay timaado. waxa uu wax la yaab leh ku tilmaamay iyada oo shalay ay dadka muslimiinta ay taagnaayeen Carafo oo ay ahayd 9kii bisha Dulxijja. wax sababta ay u noqon karto maanta 9kii bisha oo uu ku tilmaamay wax khilaafsan sunnada iyo diinta iyo gabi ahaanba wuxuu yiri habdhaq. wuxuu Mr. Ducaale sheegay in arintan aysan ka hadhi doonin markaan ay dacwad ay kaga soo horjeedaan qaadiga Kenya ee dhinaca muslimiinta u qaabilsan ay u gudbin doonaan guddiga la shaqaynta ama guddiga shaqaalaynta garsoorayaasha Kenya si ay talaabo uga qaadaan Sheikh Ahmed Maxamed Muhadir oo ka hor yimid maalinta ay ku beegantahay ciidda dadka muslimiinta oo dhan ee maanta ahayd ee loo dabaaldegay. hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya sidoo kale wuxuu sheegay in qaadigu uu ka dhigtay wax caadi ah inuu dadka iska horkeeno. ma aha buuri markii ugu horeysay uu ka hor yimaado dadka muslimiinta iyo go'aamadooda. waxa uu inta badan iska horkeenaa ama uu daadifeeyaa maalmaha barakaysan asagoo buuq xoogan ka furay ayuu yiri kolka ay soo dhawaato dadku inay u dabaaldegaan maalintooda ama maalmahooda barakaysan gaar ahaan kuwa muslimiinta. kama shaqeeyo inta badanna wuxuu yiri isku duunida dadka muslimiinta. in badanna dadka Soomaalida ah ee Kenya ayaa ka cawda wadaadada oo ka yimaada iyagu gobolka xeebta ah ama gobolka Coast-ga ee loo yaqaan xarunta magaalada Mombasa kuwaas oo mararka qaarkood xataa aan aqoonsan marka bisha Ramadaan ama bisha Ciida ama bisha Soonfureed laga arko magaalooyinka Soomaalidu ku xoogan yihiin sida magaalada Garissa, Wajeer iyo Mandera. waxaana taas in badan lagu tilmaamay in uu u adeegsado in lagu kalsoonaa karin warka dadkaasi. hase yeeshee dadka Soomaaliyeed ee dalka Kenya ku dhaqan ayaa iyagu ah dad horumar ka gaaray xagga aqoonta haday tahay xagga markaasi diinta iyadoo culimada ugu waaweyn ummadda Soomaaliyeed ay ku nool yihiin dalka Kenya isla markaana ay yihiin kuwa markaasi cilmiga ugu badan loo doonto. sidoo kalena waxa muhiim ah in la ogaado iyadana in siyaasadiyiinta ugu badan ee muslimiinta ay awood badan leh ay yihiin iyaguna Soomaali
isla markaana ka dhex muuqda dalka Kenya uu kamid yahay Aadan Barre Ducaale oo kale iyo iyadoo qaar xataa Nairobi xaafada Kamakuchi oo kale laga soo doorto xildhibaan Soomaali ah Yuusuf Xasan Cabdi halka nagala socotaan warfadhi media madaxweyne Erdogan wuxuu ka codsaday dadkiisa isagoo maalinta Ciid al-Adha kala hadlay oo maanta kula hadlayay fagaaraha weyn ee magaalada Ankara oo uu kula tukaday kumanaan ruux ayuu wuxuu ugu baaqay inay adkeeyaan wuxuu ugu yeeray midnimada xooggan ee dalkooda looga bartay wuxuuna sheegay in midnimadu ay tahay tan kaliya ee Turkiga uu ku dagaalamo isla markaana uu isaga riixo wuxuu ugu yeeray daandaansiga uga yimaada dalalka iyadoo ay bala kaashanaya buuri waxaa muhiim ah in dalka loo halgamo isla markaana waxa uu wacd ku maray in dalkiisu ka taqalusi doono halganka dhinaca dhaqaalaha ee soo fod saaray iyo liicitaanka weerarka dhinaca lacagta lagu hayo Liirwa Mr Erdogan wuxuu sheegay in dalka Turkiga uu leeyahay asxaab badan wuxuuna sheegay in uu cilaaqaadka u leeyahay dalalka Shiinaha Ruushka iyo dalalka Asia iyo waliba midowga Yurub uu xoojin doono hogaamiyaha dalkaasi Jarmalka Angela Merkel waxay sheegtay inaysan Turkigu haatan u baahnayn gabi ahaanba wax caawimaad oo la gaadho iyadoo hadlaysa ay sheegtay in aysan Jarmalku haatan arkin baahi dalkeedu looga qabo ama Turkigu ay u qabaan inay dhaqaale gaarsiiyaan ama dhaqaale uga gacan geystaan Angela Merkel waxay intaas ku dartay inay xoojin doonto xiriirka iyo cilaaqaadka la leedahay Turkigu kuma jiro xaalad dhaqaale ayaa laga soo xigtay afayeenka ururkeeda CDU oo ay shir ka soo wada bixeen Miss Angela ayaa sheegtay inay muhiim u tahay Jarmalka quwadda dhinaca dhaqaalaha ee Turkiga oo sii taagnaata iyo in la xoojo ayay tiri in aan jilbaha dhulka loogu jiidin dalka Turkiga waxay sheegtay in isku duubnaanta xooggan ee midowga Yurub iyo lacagta liirada ama lacagta yuqada loo yaqaan ama urada ay dadka qaarkood u yaqaanaan ay tahay kuwo markaasi isku baahan waxayna sheegtay in ay Jarmalku taageeri lahaayeen Turkigu hadduu haatan u baahan yahay dhaqaalo halka nagala socotaan waa warfadhi media dunida iyo warbixinihii ugu dambeeyay qaramada midoobay ma dumi doontaa arrintaas ayaa markii ugu horeeyay sarkaal kamid ah saraakiisha ugu waqtiga dheeraa isla markaana aqoonta aad u badan u leh qaramada midoobay ahna mid kamid ah hogaamiyaasha hay'adaha ugu muhiimsan ee qaramada midoobay uu ku dhawaaqay madaxa shaqada kasii tegaya ee dalkaasi dabcan u dhashay dalka Jordan ee hogaaminayay hay'adda xuquuqul insaanka qaramada midoobay ayaa wuxuu khudbadiisii ugu dambeysay u jeediyay 15 xubnood ee golaha ammaanka qaramada midoobay ee 5 kamid ay leeyihiin codka diidmada qayaxan ee loo yaqaan veto Dr. Saad Racdi Al-Husseini ayaa warbixin oo halkaas ka jeediyay waxay noqotay mid looga hadlay caalamka oo dhan warbaahintiisa wuxuuna sheegay in qaramada midoobay maalmihii ay dumi lahayd ay tirsan yihiin inta ka hadhay waxa uu sheegay in sababta taasna ay qaadi doonaan ama mas'uuliyadda arrintaas ay qaadi doonaan dalalka Shiinaha Faransiiska the UK Russia iyo Mareykanka ama dawladda dalkaasi Mareykanka oo ah shanta dal ee codka diidmada qayaxan leh wuxuuna sheegay in ay tahay maxaa yeelay buuri waxa la keenaa isla markaana ay codka diidmada qayaxan duldhigaan buuri qarar kasta oo uusan shanta dal mid kamid ah raalli ka ahayn sida daraadeedna dalalkii kale waxay noqdaan magac u yaal waxayna isweydiiyaan faa'iidada waa maxay faa'iidada leedahay qaramada midoobay haddii in la badbaadiyo dad ama in la badbaadiyo dal ama in la badbaadiyo xuquuq ay intay keenaan hay'adaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ee tusaale ahaan dhibaatooyinka ka jira Falastiin kuwa ka jira dalkaasi Myanmar ama Burma kuwa ka dhacay buuri Syria iyo kuwa ka jira dalal kale oo caalamka oo dhan uu hal dal is hortaagayo kadib markuu ka dhaxarki waayo rabitaankiisa wuxuu sheegay in uu inta badan dalalka xubnaha ka qaramada midoobay xafiiskiisa uu ka howlgalo uu ka arkay niyad jab xooggan oo dalalkaasi ay ka qabaan ka siimid ahaanshaha qaramada midoobay wuxuuna ka digay in 10 sano gudahood qaramada midoobay ay ku noqon doonto ka guur hadii aan wax laga bedelin wuxuu sidoo kale sheegay in xataa 10 xubnood ee kula jira 15 xubnood ay shan yihiin kuwa codka diidmada qayaxan leh marmarka qaarkood codadkoodu uusan wax tar weyn lahayn maxaa yeelay buu dalalka shanta ee rigliga ama joogtada ah waxa ay u isticmaalaan tan sida wuxuu yiri codada oo kale oo ah ama rahan inay u haystaan buuri codka diidmada qayaxan wuxuu sheegay in adduunku uu 5 xubnood ka weyn yahay ninkan oo asagu ka soo jeeda dalka Jordan isla markaana ahaa mid kamid ah xubnihii ugu hadalka adkaa ee soo xukumaha hay'adda dhinaca xuquuqul insaanka qaramada midoobay u qaabilsan ayaa in badan luqad adag kula hadlay Israa'iil iyo dhibaatada ay ku hayso Falastiin wuxuu ka hadlay Syria iyo dagaalka uu ka wado kaligi taliye Assad wuxuu aad uga hadlay muslimiinta Rohingya ee lagu xasuuqayo dalkaasi Burma oo uu damcay in Burma cunaqabateyn xooggan lagu saaray toodna way dhicisoobay wuxuuna haatan bedelay madaxweynihii hore ee dalkaasi Chile Michael Bachelet halka nagala socotaan
ووركي وربحيني دين عبد المسيد هرفد ميديا طبعا شق قيمة هلا طبعا هيدا حقوق الإنسان لا يقان Human Rights Watch فدي جدي هاي مقالة حرم تقوى قرمة مدوبية نيويورك ayaa dawladda Ethiopia waxa ay ka dalbatay in ay samayso baaritaan qoto dheer oo ay taxadiyadii aadanaha iyo meel ka dhacyadii xeerarka dagaalka ee sanadaha badan ka socday dawlad deegaanka Soomaaliya ayaa lagu yiri warbixin ay maanta soo saartay hay'adda xuquuqul aadanaha ee u dooday Human Rights Watch hay'addu waxay dalbatay in dadka taxadiyadaas ka dambeeyay aan la isku qabanin ee mid loo kala qaado isla markaana mid ay u wajahaan cadaalad hay'addu waxay dalbatay in dadkaasi ay noqdaan kuwo lala xisaabtamo si fardi waxay magacooda si gaar ah u soo xustay madaxweynihii hore ee dawlad deegaankaasi Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar iyo taliyaha ciidanka Liyu Police-ka Cabdiraxmaan Cabdullaahi Buraale Cabdiraxmaan laba gole iyadoo oo dalbatay in si khaas ah loo baaro doorka ay ku lahaayeen wixii dhacay sanadihii ugu dambeeyay oo ay sheegtay in deegaanka Soomaalida ay ka jireen dhibaato xooggan oo ay ka mid tahay line dadka boob barakicin iyo dadka baadiyaha fog iyo tuulooyinka ku nool oo la weeraro oo ay sheegtay in ciidanka Liyu Police-ka oo amar ka qaadanaya Mr. Cumar ay si toos ah u weerarayeen dadka 6 bishii August ayay ahayd markii rabshado iyo boob uu ka dhacay magaalada Jigjiga taasoo ay ku lug lahaayeen ciidamada Liyu Police-ka iyo dhalinyaro taageersan madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar kadibna waxa ay iscasilay madaxweynaha sida ay warbixinta hay'adda lagu sheegay Maria Bennett oo madaxa bariga iyo bartamaha ee qaaradda Afrika ee hay'adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in dawladda Ethiopia looga fadhiyo inay cadaalad u samayso tacadiyadii darnaa ee deegaanka Soomaalida ka soconayay 10 sano ra'iisul wasaaraha cusubna waxay ugu baaqday in isbedelada uu wado uu ku daro in cadaaladdu ay qabato kuwa awoodda badan ee u geystay dambiyada waaweyn sida kasmada ma aha markii koobaad ee hay'addu xuquuqul insaanku ay soo jeediso in deegaanka Soomaalida ay ka dhaceen tacadiyo dhawaan ayay ahayd markii hay'adda xuquuq aadanaha u dooday ee kale ee la yiraahdo Amnesty International ay ku baaqday in ciidamada Liyu Police-ka la kala diro taariikhda madow ee xuquuqda aadanaha awgeed sida daraadeedna ay tahay in la xisaabtamo dadkii ay ku dhibaateeyeen jeelasha iyo kuwii ay laayeen iyo waliba dad ay hantidooda qaateen waa sida ay hay'addu sheegtay cudurkii Ebola loo yaqaanay ee ahaa markaasi asagoo caabuq aad u xun ayaa Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ay sheegtay inay sare u kacday tirada dadka ku haleelay cudurkaas gaar ahaan bariga dalkaasi waxay xukuumaddu ku dhawaaqday in adeeg caafimaad oo bilaash ah loo fidiyay dadku ku nool baleeri 3 magaalo oo cudurkani uu saameyn xooggan ku yeeshay magaalooyinka adeega caafimaadka ee bilaashka ah helaya ayaa waxay kala yihiin baleeri magaalada Beni Mabalako iyo Mabalako Mangina iyo magaalada kale la yiraahdo Wajir oo la xaqiijiyay in dhammaan dadka cudurka uu saameeyay ay heleen daaweyn waa markii sagaalaad ee cudurkan lagu arko qaybo kamid ah dalka Kenya waxaana 3 kamid ah ay ahaayeen intii u dhaxaysay 2014 ilaa 2016 cudurkan ayaa la rumaysan yahay in laga qaado nooc kamid ah kibilida ama oo ah midhaha dhirta ku nool kana weyn fiidmeerta oo ah markaasi mid ku nool midhaha dhirta cunta balse wuxuu dadka isku qaadsiiyaa dhiigga iyo dheecaanka ee kale ama jirka xitaa waxa faafiya xayawaanka sida daanyeerka deerada ama cawsha iyo kashiitada ama canoqurta si kala dadka qaarkood yaqaanaan daawadaasha qiimaha leh dabcan halkan nagala socotaan warfadhi media iyo wararka ugu dambeeyay warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda qaybaha dambe ee wararkan iyo wacalaha dabcan gordhow